السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. سو دوادا كسو دوادا إن شاء الله تعالى. برنامجنا عاوة وموضوع مهمة أنكال دونه أرين مهمة يعني نانفعيس دمانتي دينا كستا نغا أنفعيس naga anfacaysa dhinaca nolosha adduunyo naga anfacaysa dhinaca aakhiro naga anfacaysa wada jirka aakhiriya adduunyo dhinac walba naga anfacaysa xagga jirkeena naga anfacaysa xagga niyaddeena naga anfacaysa aad baa mahadsantiin. Assalaamu calaykum ayaan idin leenahay. Wa calaykum assalaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh ayaan leeyahay inta ugu horeysa ee salaamaysa. salaami dushiina ha ahaato, abaalkiinana ha ahaado adduun iyo aakhiraba, janno ha ahaado meesha aad wada naawilaysaan inay noqoto hoygiina. qof walba sacaadada iyo liimaantu raadinayna allah ha siiya tabaaraka wa tacaala. caawa arrin muhiimaan ka hadlaya, arrintaasoo ku saabsan oo daba socota arrimaheennii hore ee ku saabsanaa bulshada iyo hagaajinteeda. barnaamijtan ayaa u qacan qaaday markaan arkay bulshadeena meelo badan inay xoogaa dacfi iyo maskiinnimo ka haysato, in meelaha qaarkood ay maantay bulshadeena qaarkood ay inta badan ay ka bukaan. markaan arkay ayaa qacanta waxaan u qaaday inaan arrimaha noocaana ka hadlo. calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. markaan arkay bulshadan ku dhex noolaa oo dhinacyo badan ka bugta, waxyaalo badanna aan arko aan ogahay, ayaan waxaan go-aansaday inaan howlahan ka hadlo. ugu horeyna nafteedaan ku anfacayaa intaan tiinaba la gaarinba, si aan ugu noolaado nolol aan fahansanahay, aan u hiigsado mustaqbal aan fahansanahay oo rabbi raalli ka yahay, diintayduna igu horkacayso. inaan u hadlo si waaqiciyan ah, si diiniyan ah, si bulsho ah, si haddii alle ku runya wada jirnimo, si walaalnimo ah, si nasteexa ah. walow mararka qaarkood luqaduba ha adkaatee, dadka qaarkood ha ku adkaatee, laakiin ujeedadaydu ma ahan ilaa inaan wax islaaxinayo oo idaacadiga tahay. qof kasta oo arrintaasi naqdinayana inaan kala hadlo diyaar baan u ahay, in uu maaragtay iyo wax kastoo dhammaanteen waa isqurxinaynaa. muuminka kale muraayad buu yahay. caawa waxaan ka hadlaynaa samo naharinaysa caawa ka hadlaya. dhul nasida ayaa caawa ka hadlaya, taasoo nagu xambaartay garbaheeda, na ilaaliso na dhowrtay, na waraabiso na quudisay, wax na bartay. taasaan ka hadlaya, taasoo culays ay buuruhu qaadi waayeen qaaday. taasaan caawa ka hadlaya, iyadoo maca daalika ubaxa ka jilicsan ama dhibicda biyaha ka jilicsan ee waxay qaaday waxay buuruhu qaadi kari waayeen ayuu dulqaatay. way daaweysaa, iyadoo xanuunsan bay wax daaweysaa. aad iyo aad farxad bay gelisaa dadka iyadoo murugaysan, way soo jeedaa iyadoo daalan, way murugootaa iyadoon la fahmayn oo la dareemayn. taan ka hadlaya waa tee, waa haweenayda Soomaaliyeed wey, waa hooyada Soomaaliyeed wey, waa walaasha Soomaaliyeed wey midaan ka hadlayo. taas midaan raba caawa inaan tilmaamo sharaftay leedahay inaynu fahano, annagoo cuskanayna aqwaashii rasuulka ilaahay oo ahaa ragkii u fahansanaa dumarka uguna naxariista badnaa calayhi salaatu wasalaam. in un ama wax un ku dayasho inaanu samayno, boqolkiiba 50, boqolkiiba 20, maxaan dhahaa 30 ama 40 xataa aan soo dhaweyno ku dayashadiisa. maba soo dhaweyn karnabe, mana buuxin karnay sida uu la dhaqmi jiray nolosha kala duwan, laakiin waxaan rabnaa inaynu soo dhaweyno xoogaa insha allah. raggu waxay ka hadlaan 4 arrimood dhibaatada haysata, laakiin 4 bay hilmaameen markay dul saaran yihiin ama ay ilaahay ku imtixaamay inay ururiyaan ceebaha dumarka. iyadoo dhashay, iyadoo u dhaxda, iyadoo nuujisay, iyadoo dhibaato kasta la martay, ayuu saa ugu salladan yahay oo ceebteeda iyo ceebaheeda mooyaane wax kaleba ooma noolaba oo maba raadinayaba. talow
تلو محوك فائدة يا دراميهيسي سامحة كدعي لكن وقادا دمرو أيضا وجكر إيجا هاين دنا كلنا إيجا هاين وربي بقى وقفل بقلب جيس سجاد دالع عني أيضا إيجا هاين وحو كله يجد كله أيام ربا إن شاء الله تعالى قربك أدي السان قربك الرادين إنسان إن هذا الشام دمرو قربك الرادين إنسان نوع عدونتان كالرادين ورقو كليهين هدي وداددو النقدان يهدي ورا الله هذا النقدان رقو نوع عدونان بها النقدين قربك الرادين إنسان إن بدونات كويدين يأتبسان إلى يومنا هذا إن وحون كهشان حتى كدر درينتان إن حوغا بتشرو ولو الضعف بها هايستين وحون إلي جرا إن درينتان بروا وبرنامجتان يقوى كلا يسوس عضا قضب والله اللي دون أرتما كلا دوان إن حوغا يركو درينتان بروا إن ولي قرب هايستان قرب ولي بالله أو ولي بسيد ضيانا قرب إن ولي الدريميسان أدليدهن وحفير سنة مستقبل هالكات كي أساس ليدي اللي هالكاس وحبا إيجا يفيد هالكاس وحبا إيجا يفيد هالكا وحبا إيجا موضة هالكا وحبا كموضة الله مستقبل كي هالكاس وكجرا واحد يفتين يربى هالكا إيجا بالحوغا ساد ولا هذان هم برنامج تانو قال إن شاء الله تعالى سيبان وقال اللين وأبالي نقول ليه والله والله سيبان وقال لين أبال كذا إلهي مباقودي كريه وهوي ميل كلا باكدوني وحاس كادي عبد الله بن عمر سوى الطوافية أيوه حركة نين تنك كسيته هو يديس ولا الطوافية هو يديس بهالك قوته ولا الطوافية كاسو عبد الله بن عمر سؤال بويدحيري عبد الله يو ما أركتها مصاب كم مقطع إن عن حق يدي جودي لا دور كيان كضوافينيا عبد الله السدا أنت أفيري ولا لعتي أيوه حريري إسكده حق يدي دل إنا جودي مالين أيوه دبرك كوكوسي ده أي مودي إن المرضى كسيبتي نحرنتي درتي هق أي تري إن المرضى كسيبتي درتي أي اسمودي نحرنتي أنا نحرن بعد ولي جودي بس كده واحد كله وطاس وحده كله أوالك كله يقولها إسكاب الداية أنت يرتدي ولي جودي مركي كفورني سن نبر ير هذا جيستي هذا هذا إلهي هذا إنه جودين بقى حقي جاري كرنا مركي حقي إن قولي كمان الصبح هنا محل عفوا عذرا بإذن الله يا رالي أها وحان رواينا سوقات أحاديث تصور رجل لدونينا عقل النقضاء نوع دونان النقضين برت أحاديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام قاب كان برت منه كهر الدونة وودي الدونة برت دور أحاديث ينسوق هذا دون عاوي دردارا وقدم بينا وكسو كوبي تولا إلهي إذن بركة جزاكم الله خير أحاديث waxay ka hadlayaan arrimo khuseeya oo gaar waa haweenka haweenay yahay baro sida lagaga hadlay laguma dayicin laakiin waa la duugay xaqaadi baa la duugay xaqaadi waa leedahay waa dhooban yahay sharcigeena meel kasta uga jirta hal meel kasta yaacaysa laakiin rag baa awday inta ilaahay u naxariistay meel way awdeen way laabeen way laabeen allah laabeen ila yawmina hadana way ku indhaayeen حق هذا مركي يا جودي كره هو يمعان ولا شيء ضمان دو خبرير أيه حاس كون أحسن ورحق هذا يا بجودي كربا يا بسوق جاري كربا الله ما قط دار تمل جودي كرين رجعنا هذا يسكت تجان الرجع نك الله حق تمرك الدون كنا تني ينسق هذا يسكوا ده شنكا رجع ده شنكا يرجع ده ينسق هذا يسرعان ويدين كرجاران حق أدخل ليدين ولي مكيني بقول كيبا أفرطن يشن ميسكيني إسكده بقول كيبا كنتريو رحلمي برتا مركا حديثنا يا نبي جن السودين كجا هذي برتا أو دجيست سي قلبي جن أدقو نمضى هذا نوقاتي أولا نترتن رج مركا أفر بيشيغان أفر بيشيغان أفر نواهي المامين لكن واحد أيقا قدام توي شيغان واحد كلا لكن ما كريه أفر بيه المامين أفر نواشك شيغان ويسوع العيال أفر تيسوع العيال متقنا يسوع العيال متقنا
مثنى وثلاثة والرباع لبا إلهي بني صدح با إلهي بني أفر با إلهي بني رقوا أكو تصبيح سلام ها wax kala ma yaqaanaan way soo celceliyaan ay maxay kala soo celceliyaan waxay kala soo celceliyaan an-nisaa'u naqisatu aqlin wa diinin dumarku aqli ahaan iyo diin ahaan ba nusqaana ku jirtay soo celceliyaan ha maxay kala soo celceliyaan lidhakari mithlu hadd al-unthayayn ha ay soo celceliyaan wiilku dhaxalkay gabadho qaadanaysa dhabalkeed buu qaadanaya ay soo celceliyaan maxay soo celceliyaan maxay soo celceliyaan waxay soo celceliyaan inna kaydahunna cadiim soo celceliyaan ragku saasay soo celceliyaan dhaqankooda waay iyagoo ka been sheegaya aayadahaas iyo axaadiistaas ma khaldana ayagaa khaldan qurunka ayagay ku jiraan kuwan aayadahan kuma jiraan way soo celceliyaan way soo celceliyaan way soo celceliyaan arrimahaas maxay kala soo celceliyaan الرجال قوامون على النساء way soo celceliyaan kaana waxa mudda aayadu kuwii ka hadlaysa raganimada inay iyagu yihiin laakiin ogaada maxay hilmaameen afar kale kuwa kale hilmaameen maxay hilmaameen taqaana waxay hilmaameen istawsu bin nisaa khayra waliga haweenka khayr u sheegay wanaag iyo ixtiraam way hilmaameen taas waa ka tageen markay taas soo qaateen maxay hilmaameen ma akramahunna illa karim wa ma ahanahunna illa la'im qofka wanaagsan ba haweenka wanaajiya qofka xun baana xumeeyay way hilmaameen kuwaas way hilmaameen way ka tageen maxay hilmaameen oo kale ma taqaanaan khayrukum li ahli ninka raganimada ragga ah ee khayr kale waa midka xaaskiisa iyo reerkiisa u khayr badan taa way hilmaameen way ka tageen xaqay aadeen meel kale kuwada sheeganay wixii xaqi kale waadeen taa waa hilmaameen ka tageen laakiin xagga waad insha Allah wad ogaan doontaan wax badan oo tuuri waa soo tufi doona waa ogaan doontaan laakiin been ku noolaatay ragoo wax badan baa sheegteen laakiin wala idinka daba tagaya wax saa doontaanba u dhigmaa saa doontaanba ahaade ragoo waa la idinka daba tagayaa been fakatay run baa laga dabayaa been fakatay runtaada dambe wax dhintaa ragoo raganimada soo celiya dawga ilaahay idin siiyay ee qiimaha badanne carfiya aad qurunka ka dhigteen carfiya caraf ku shida unsi ku shida ilaahay idin siiyay quruxda badnaa ee aad ka dhigteen qashinka aad ka dhigteen duliga aad ka dhigteen rag oo kayaal baan ugu bixiyo kuwa maanta nool rag oo kayaal tuf baa leeyahay oo kayaal way ogii halkaas uu maraya waa nin wax uu dhaldhalaya wax uu dhaldhalay kara wax uu turturaya dhaldhalay kara darkii nimanka waxa leeyahay waa qosli kara laakiin ma jirto xaqiiqadii mirihii raganimada ma laha xaqee uu nacay uu iska bixiyay waa ka tagay uu ka tagay asaga iska siibay ilaahay karaamadu saaray wuxuu yiri iga qabta halkaas uu iska dhigay ay shay hada ogaada in ilaahay tabaaraka wa tacaala oo adiga ku abuuray aniga yaa abuuray haweeney adiga ku doortay inuu gabar ka dhigo kana wiil ka dhigay rabbigaas dunida kala yaqaan oo kala hagaya rabbigaas wuu tilmaamay dowrkaada adna wuu tilmaamay dowrkaada laakiin adduunka hadii la isku haleeyo ka waran qof walba wuxuu salahayn uu qaato waa dhibaato waxba yaana ku badan xadiis dhageysta khushuuc iyo wanaag iyo ikhlaas ku dhageysta ku dhageysta khushuuc iyo ikhlaas ay dartiis waa hadal macmacaan oo ka soo baxay qofkii dunida ugu sharafta badnaa waa Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam kaasay ka soo baxeen xikmadahan bushimihiisa sharafta laha ayay ka soo dhaxbixeen kama soo dhaxbixin mid tubaaka cuna mid qaad cuna mid gabdhihiisa dayacay kama iimaan oo kuma hadlin wadaad diinta ka been sheegay kama hadlin wadaad fataawihiisa ama uu jawaabtu bixinayo dumarka ku adkeeyay la warage kama iimaan mid sarfeer ku ah Yurub ya qabowgeeda ma aha ee qabyaalad iyo qurun halka la fadhiya kama iimaan midka Soomaaliya dhishikaha iyo qaraxa la fadhiya kama iimaan midka duliga ee reerkiisii Yurub ku dayay caruurtiisii gaaradu qaadatay Soomaaliyana iimaanaya dhahay wasiir ka arrimaha gudaha la dhaha arrimaha guduhu ka xanuun arrimaha guduhu kule kuwa kama iimaan waxay ka iimaadeen nabi Muhammad bay ka iimaadeen oo sharaf nooc kasta ku dhameystirantay
nooc kastoo wanaag magaciisana yaqaan dhagaysta waa kan oo ka hadlay nabi maxamed arrimo khuseeya maxay khuseeyaan ma taqaanaa nolosha adduunyada oo ah haweeney nolosha adduunyada ayay khuseeyaan ninba ka hadli maya bas ninba ma ka hadlay maxaa Allah xaq loo hadlay sababtoo axaadiis ragga amaanaysan waba arag markaan isku miisaamay axaadiis ragga ka hadlay isku dumar ka hadlay ku dumarka batayba meesha loo badan yahay hal raacay Soomaa maba aragba bal dhagaysta wuxuu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam u fiirsada allahumma inni ya warda nabi maxamed oo waad ilaahay u baryay allahumma inni uhriju haqq ad-da'ifayn labada daciifka ee la tinjileecsado ilaahu xaqooda adaan ku daaya allah ilaali gadaashay rasuulku ilaahay kuwaasi waa kuwe al-yatiim wal mar'a agoonka iyo haweeney waa dhiman yaa nabi maxamed adduunku ka socda rag kuwa annaga naga mid ah oo nooca dulligan inay imaanayaan waa loo sheegay laakiin wuxuu yidhi ilaahu labada la tinjileecsado ee masaakiinta ee lagu tunto ilaahu kuwa xaqooda rabbiyow xaqooda leeyahay sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa hadith saxiixa oo Abu Hurayra wariyay nin Soomaaliyeed qaad cunama warin ee nin raga wariyay xadiiska kale dhageyso wuxuu nabigu leeyahay alayhi salaatu wa salaam akmal mu'miniinta kan ugu dhameystiran ma taqaana mu'miniinta kan ragga mu'miniinta kuwa ugu dhameystiran ee ugu sita ma taqaana iimaanan ahsanuhum khuluqa kan dabeecadahan ugu wanaagsan waa dabeecad meed haysaa islaamaha la tirsataan iyo gabdhahe dabeecad meed haysataa waa dhacdeen ahsanuhum khuluqan wa dabeecadii lana ka waayay way waa dhiman anaga dhinac kasta waa ka dhiman isagoo ahli diin sheeganaya oo diinta iyo sunnada ka muuqato saas kaadida iyo saxarada isku qasaya diinta ilaahay khilaafaya hadana diin buu sheeganaya diin waa diinteed waa diin aad murxiseen caloosha kala baxdeen oo meel cilla dhigteen marka muuminiinta waxa ugu wanaagsan kan akhlaaqda ugu fiican innahu kana siddiqan nabiyya innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya innahu kana mukhlisan wa kana rasulan nabiyya wa nabiyyan suratul maryam akhriya ma ahan waxa shaxda dheeshaana waa quraan bardo soo akhriya suratul maryam akhriya nabi ibraahim billahi wuxuu run badan kadib baa yiri nabi buu ahaa نبي موسى وحلي داعد بوها كدب حلي الرسول يا نبي بوها نبي سليمان وحلي بلنتو اوفنجري كدب علي النبي الرسول بوها اخلاق ذا الرئيسه هذا اللي نكايوي الدين هذا عباده هذا واحد شيء هذا يكون فعيا لكن اخلاق ضلك يضدك يا مدن ما ينفعنا اخلاق لا ماذا وضيعنتي عليه الصلاه والسلام حكسي دري وفيرسدا وخياركم خيارهم لنسائهم ورفض جدان يا او اخيار نين اخيار مدونيسان هدومر نين اخيار مدونيسان ها وكان دمرك او وناكسن او فيعن كو قبي كو سقمين ونحريسته دفاعه نبينا عليه الصلاه والسلام ابو طالب مركو امانه محوير ابو طالب عصمه للارامل ابو طالب قبييه نبي محمد بو امانه محوكو امانه دفيس با waxaad u tahay haweenka garoobada iyo kuwa la dayacay ayaa nabi maxamed oo dhufays u tahay meelay ku soo hirtaan meelay soo aadaan oo maciin soo badan baa tahay nabi maxamed oo yaa dhahay mataqana abu talib oo gaala ku gabiyay adinku laakiin waa maxay meeshi in la isku soo hirto hada wala ka carraya bahlaatin bahallo wala ka carraya sidaan inay soo aaday riwaayad kale waxa ku soo arooray al-dafhum bi ahlihi oo fiirsada nabi maxamed naxariiso tilmaamayo ehelkiisa maxaa loo jeedaa xaaskiisa laga wada midka u dabacsan buu nabigu leeyahay xaaskiisa kaas ayna kugu khiyaarsan midka ugu qalafsan miya maya kaas ma ahan kaas waa doqon al-lutf wa turida wa xanaanada wa jilicsanaanta wa garabli raaricinta wa dabac hadalka wanaagsan wa kan ugu macaan buu nabi maxamed leeyahay alayhi salatu wassalam haye rasuulka alayhi salatu wassalam xadiiska waa xadiis saxiix ah oo sugan oo iscidna ka daba hadli karin أبو هريرة سجن وريه رضي الله عنه حديث كلا وحوي أنس بن مالك أيوح الله كان النبي عند إحدى أمهات المؤمنين حاسسك مؤمنين تمت كم إذا جوري يدو جوج الرسول فأرسلت أخرى حاسسك سمت كم إذا وحي صدرتي بقصعة حيرة فيها طعام عنتي كجرته أي صدرت
tii gurigeeda la joogay Caaisha riwaayad kale tilmaantay ayaa masayrtay fatarabat yad ar-rasuul rasuulkii markii qacanta loo geliyay xeeradii cuntada ahayd Xafsa soo dhiibtay oo rasuulka xeeradii cuntada ku haya ragna meesha fadhiyaan rag u dhigi rabo ayay Caaisha soo booday markaas xeeradii asagoo qacanta Nabi Maxamed ku haya bay xeeradii haraati ku dhufatay oo kala tuurtay nin Soomaaliya xaaladaas muxuu sameynaa talo adduunka dhan baa kici lahaa mana istaagi lahayn kala isku baabi'i lahaa maalintaas uu soo feerin buu rasidaaba cayd iska badaaba nacaladu nacaladay maxaa dhacay Nabi Maxamed uu sameeyay fasaqatat qas'atu xeeradii waa dhacday oo waa dilaantay fankasarad waa jajabtay xeeradii cuntadii xataa ma daadan xeeradii dhan waa burburtay eber bay noqotay fa akhadha an-nabiy wuxuu soo qabsaday laba dhinac bay u jabtay fa akhadha an-nabiy alayhi salatu wassalam Nabi Maxamed oo kariima wuxuu soo qabtay al-kasratayn labadii qalbac amba labadii dhinac labadii dhinac xeerad u kala jabtay ayuu soo qabsaday midba mid ayuu soo qabtay fadamma ihdahuma ila al-ukhra labadii jabbu isku keenay xeeradii kala jabtay buu isku keenay nabiga alayhi salatu wassalam sidoo u dhaqmay u fiirsada faja'ala yajma'u fiha at-ta'am cuntadiina uu ku soo celiyay ee daaday dhulku ka soo ururiyay alayhi salatu wassalam ragga Soomaaliyeed iska tilmaamaan malahan isxayisiinta ويسحيسينيا أنت نقدر أنت نقدر ما راح يو ضدك وسكت ذي وحتى هذا يصير مثل كلام حكوا سوق قريتي حتى واحد كلا كويس سمع صوب شيطان أبو تيجي فان بيني يغنى نبانته وكان النبي محمد عليه الصلاة والسلام سوى حديث كان إنه لو كجورني فجمع فيها الطعام ويقول محيري كوكون عيا رجع ماشي في ضدك محيري إسلام تقولي قد بوي والله إذا اسكت يا وحوا فيني بلاي أنا كنت ببني هذيك ما أنت بكذا ولا أركتها أنا كنت ببني بلاي أبي سكر قلنا شيفته ويه إنكار بي قبطايا مصيبة إلا كل ذي أنا إذا كأقاني أنا إذا كأقاني كنه لطقة إلهي هاي طافية مصيبة إلا كل ذي أيوده لها إنه هذا الرجال راليك هذا وي عبيس الله عبي إلهي مرضها كبحية بل وضلطلي لها بل ونسوا من الواقع أن هذا بترجمان تذكرنا بل بحين لها لكن النبي محمد عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله غارت أمكم هو يدين ومصير تبير بس خلاص لا قنع ما مصيرتي مصيرك حق وايا يا مشكين وحكوا لي سنانت ما تروي دبا جلس حاجات شوكتها حاجات ادي تعرف حاجه قوم ويد waa lagu dhahaya oo hadii saal uu yahay nin lagu jecel warwaab lagu jecel yahay hadii lagu daba galiyo hadii laga aamuso lagu daba galin wallahi lagu nacbi xeesha xukumiya la xeerada ka qaado laakiin hadii saantu ku daba galayso oo ku soo wacayso salaamu calaykum qaligaygiyo xagaad joogtaa caawa waa daahde saacada iman jirtay meehe xagaad ku laabatay yaa ku fariistay jidka ساه نود بقرينه ما ضيسه ساه نود بقرينه وحاني محياك ها هذا سوى اساس بدين ودو هذا وقرني يا سلوغتودي نفته يكنتو ليه نفته يكنت marka suuq la soo fariisanaya ceebta shay suuq nafta yigantay soo kama harsado markii taleefon soo dhaco soo niman la fadhiyo intuu soo bixi leeyahay tiib inuu naagtida u manaajic xuntaa halo dulay معجز وقرني معجز هذا المعنى هدي سؤالها اللي ويديو أريمها لقاه ورئيس هو اللي جعلي هدي اللي حقال هذا اللي قدبقلي هو اللي جعلي نلا إلى صنع يا تاي ولا جعلي لكن هذا اللي قال إنه مركز إيماني سي مركز بحث وسكو قميت تاي اللي قلنا ولا جعلي هدي اللي قوم مصيري أنا هذا المعنى ها ما ده وعشو وشنا ونقو حولات هاي عقرن ما يصير مركز حديث بوسي سعودة غارت أمكم صلى الله عليه وسلم وين صرته رسولك عليه الصلاة والسلام لأن الجوري جيجي أيضا عمتلا جنا جوادك قرد الجوري صادر عمتلا صادر تي أي كم سر الجوري جيجي وشجعان حي وصادر يسوي معناه غارت أمكم كلوا اسكعونا بالعمتلا اسكعونا عمتلا بير عليه الصلاة والسلام أما وحولي لها دو صومالي أهان لها نجا كنا عمتلا نهدازي بلاي لو كان الجوري جنا بوقتني ورنا كنا مخايد بعادنا نبدي لها ورنرشاسي قرما مترينا نرشاسي قرما مترينا نبر الله اللي كله في قرنا نرشا مترينا قرما مترينا في مجال لماذا قرما ثامسين باديات كلمات كتب من واقع عليهم وعرفتين كسر عيل دلكيني دتني بدين نبر بعض أفتحني كلوا واشربوا الرسول عليه السلام فأمر النبي حتى جاءت بقصعتها التي بيتها فدفع القصعة الصحيحة كدب نحوي حيرة صحيحة أو عافيمات قبطان دلاعين سو قبطة نينكي عنتدا كنا نحوي حيرة دا نوجي أو حيرة لوجو عنتنا لوجو ساس النبي محمد عليه أخيار كلا جود
sala allahu calayhi wasalam nin soomaali hadduu ahla tii kale ula hadli lahaa naa cuntada noo keenay tii umayd baa nagu xumayso nimankii nagu ceebayso cuntadii daadisay balaayo allah u keenay tiina markaasi soo naqsan lahay naya cuntada maxaa kuu geeya anigu waan soo diray war adduunku waa la kala helaa markaas wuxuu ku leeyahay والثلاثة والرباع سدح يا أفر أي بنات محمد كذا عقل ما باي يقول هاجي النبي محمد صلى الله عليه وسلم هاجي داوود مدح سوق لنا أسوق كارو مدح سوق لنا كسورة الإسلام هيجي بايسيس الإسلام هذا بايسيس هاجي كايس هذا بلا يقول عليه وترك المكسورة في بيت التي كسرت برسوله في الحارة شفتنا نقول عشان لو قلت يعني نقول هوني يشبه لو قلت قالت عائشة وحيت الحديث كروية عائشة وريس افتقدت النبي كان وايي والإسلام هذا ضيق هاور هاي سو كرادين يسوي كوتشعش ويكوتشعش هذا كرادين يسوي كل الحاجات هذا وحاجات أردجيست النبي محمد يسحب حاسس كيس دجيست عب فليال باتين دجيست وترى وحنا عايشة لا وحن نبي كان وايي بيتر صلى الله عليه وسلم ذات الليلة الهمين فظننت وحن مريي نبي كان وحن مودي أنه ذهب إلى بعض النساء حاسس كلا إنه أردن طيو آذي أيان مريي بيتري guriga ka waayay waa mugti guriga macnaha waa arki waayay waana mugti guriga waa guri yariis guriga masaajidka ku gaaway hadda qabrigiisa way ku dhex jiraa alayhi salatu wassalaam ya rasuulallah udran diintaada iyo dardaarankaada bixisay raggi dambe waa baabi'iyeen raganimada aad lahaydna waa baabi'iyeen way ceebeeyeen laakiin anaga ka difaacayna waxa noocan anaga ka difaacayna ya rasuulallah anaga ku nool صلى الله عليه وآله وسلم أنك كادي فاعنا ودلجا أمانة النور الرجال وذا كعياري الدين تكعياري عقل كعياري الدرين كعياري الضد كعياري الضل كعياري بس تدارو فكرية راحوا لي بلو في الصلاة مركز واحد ترى عائشة ذات الليلة همين هذا كم إذا هو رسولك صلى الله عليه وسلم مركز حمد فتحسست وان باري قولي مبدجا أنت تعبتي بتري بدون مخرده وتعبت ورا هذه الله أكبر ثم فتحسست ثم رجعت وصون غليتي مكان بارباري يقولي كبارباري فإذا هو راكع وبتكوني يقول جوجا ما بحين با إلهي وبريه وبتكوني يا ورجولي إن صلاة كن نورية وحاسس كإن صلاة كن نورية وصلاة كن نورية وصلاة برا قاد بالله صدقني يساري رسول الله كان وبتكوني يا بيتر وهو الراكع صور ركوع صنبا أنا ركبت أو ساجد أو سجودا أو يقول له سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أصوبك هاي سجود سنبا ركبت فقلت عن قولي بأبي وأمي هو يدي أبهي كغفرتي إنك لفي شأن وإني لفي آخر أنا حالت كلام كتشفته وأنا حالت كلام كفكرية أنا وحنا كفكرية أنا حاسس كلا أقول مطيبة أنا هالكلام نوت تكوني زي الله نوبر يساب مركب وكلا فوقنا ولا هو يمساس على نسكو فهم ولا نسكو شاكيو أو هذا لو يترى أيضا نسانا هان بلايس عيسين سلام بانا بلايس حمنيس لما بانا ما ذا الرجال نقد يا عيارته نقد يا قوسيس كبابا بلام بالكباب برتة مركزو رواية المرة يدري فدخلت يدي في شعره اسقو سجودسن قعمها كبار غور ومغدو لا يرمجري فينس قعمها كبار باريا قعمينو جوغا marka asagoo sujuudsan ba qacmahayga waxay dhex galeen timihiisi quruxsana ee dheera ee jilicsana jirartan Soomaalida ma aha macna jirar maxaan ka wada kuwa xunka timaha gaaban oo naga wada dayac ma ahayn timisu xalaal bay ahaayeen xalaal bay ka soo jeedaan asaga xalaal ahaa wanaagsanaa oo asaga khayr badna wixii soo dhan u jilicsanaaday wixii soo dhan baa u nuuray anagu laakiin tubaanka aan laqanaa oo qaad baan cunaa oo xasidnimo ku dhaqanaa oo cayban ku noolay oo qabyaalad baan ku noolgaasa jirkii baan adkaaday oo qalbigii baan adkaaday oo timihii baan adkaaday oo lugihii baan adkaaday oo dharkii baan adkaaday noloshii dhan baa adkaatay laakiin noloshu markii wanaag la way jilcaysaa abuurtaada xataa way jilcaysaa waxaad ogtihiin masaakiin waxaad ogtihiin nagoo dhan baa si kala noqonay rag baan xumeeyay rag dumar oo rag adiga maxaan kaliya rag kale xumeeyay rag wanaagsan way baabi'ay aniga kaliya ma waxba ma adiga xumeeyay rag kale waa awsho gulan jira beerka laga tumiyaa laakiin qaala nabigu wuxuu yiri qad jaaka shaytaanuka marka ma shaytaankaadi waa ku imaaday faqultu waxaan ku yiri ama laka shaytaan oo adigu shaytaan miyaa la nabi maxamed waa xaaskiis wada hadlay waa nin xaaskiis wada hadlay alo fiirsada waa nin xaaskiis wada hadlay marka waxa hadalka markay waxay tiri nabi maxamed Aisha ma shaytaankaadi wax xun ku sheegay markaas waxay tiri rasuulkii adigu shaytaan ma leedahay
muxuu dhihi lahaa hadda Soomaali ahaan la afka igu soo celin halkan ku weydiiyo iga jawaab waxaan ku weydiiyo iga jawaab ha igu soo celin hadalka saasa ila tirsataaye inkaar Allah ku gurida waa dhihi lahaa laakiin muxuu ku jawaabay marka wuxuu yiri ma shaydaankaada ku yimaaday waxay tiri adigu shaydaan soo mali ونكير الله ليس صلى الله عليه وسلم وقاعد حاسس النبي محمد النبي محمد واحد أحمر نين يحاس كيس واحد أحمر ولا حسابته هديهن واحد كهمين كلا لا عادي مقاسو حيدري واحد الشيطان كذا من مقاسو قال بلى ها شيطان ولا واعتراف ولكن ما أدري نرشة معان إيه ولا أحسن سقط الله ولا وريسانية سقط صلاة الليل تكون آخر وات الله الدنيا وات الله ورد وحده مسلوب صار ورد الدنيا آخر ولا سكتر صار markaas wuxuu yiri nabiga kaleey salaatu bala anna shaytaan baale markaas wuxuu yiri walakin allah ishasa ahaatee ilaahay baa aanani calayhi ilaahay baa igu kaalmeeyay inaan qabto fa aslama shaytaanka igu islaamay waa muslimaad qof walba leey macna waa muslimkayga marka xumaan hadda farimayo macna waa kaygu saasu nabi maxamed ku yiri kaleey salaatu wasalaam wa hadal wanaagsan jawaab wanaagsan istixtiraam barta rago barta raran allah idin galiyaan leehina barta ربنا بعضهم الكجريسين الدنيا الجريسين برت نبي محمد وحوها من آدي بلنت وقو في حاسس كيسة ولو أو فين ماشي قدام بيسي ولو أي ورد من تيبا وقو فين شري حقوقه عائشة وحيلة ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحيتري لها يعني وشك شوا وحيتري ولي كمان مصيرين انتان خديجة كم مصيري ولي إسلامنا كم مسائل ما جرتوا خديجة وهاري لما تبى ما قلنا ربع صوت وامحي رسولك سعود عليه ومقعد الشيك شيكة يا إن الله رزقني حبها سجايري جوابت عائشة سي إلها وتعال كذا وإرساق عائشة إسكم يقول إسكم لما تبى هذا ما قلنا له لأن مركدتك جوين بير واتي حريري سي تدك حوله هذا مركي يديرين واتي حوله هذا يسوي عروته إذا بدن كذا إذا شيء بير عليه الصلاة والسلام هل بالمير عروته إذا شيء بير عليه الصلاة والسلام warkuwi carruurta idin dhalay ayaa hadaa lagu dayacadana ka tagteen kuwaan carruur idin dhalay in guursan dooni ay daba ceyrsanaysaa kuwa ila soo xariiriyay waxay leeyihiin nin walaalkaya gabar qabay wiil bay u dhashay way isjeclaayeen islaamka gabar kale gabadha kulliyo ku jeclaa ku aroosay gabadhiis islaantiisu u sheegay xogaa ka uu sheegay xogaa xagaa uu ku fiican yahay uu sheegay wuxuu yiri gabar kale aroosay islaanta waxay tahay ama gabadha guursan ama inay guur ama ana qabaysa way furaysa haweenka arto masirku waa masiiba laakiin waa inaad taxammul samaysaa يعني أقبلي كرتا وحد مركب عيت هذا قبل أقول سيتو واي فريسة مركب سوق يري أنا قبل ده ما تشعل هاي لا أنت من نوران كر ولي جاه نوران يا داعون ودمو نوران كر أول بسمة نوري وتنكم نوري مركب أيضا أنت نسبران سوما هذا نوري وراح إن يدك كده عدني أنت من نوران كرقولي وأنت نسبران سومي نوري سوما هذا نوري سوتنكم هاي ويل كورد شيء استقانا أرستينه ها متنهايس ويل بيدش وقتي حتى دور لبعض وضمعيه وحتى عقلي كلمة ديه ما يلا قبل ما كيدش صدق حرور ما كيدش أفر ما كيدش شن دش لح دش حوجا قلبي صدقه مركب حوشة لكن يدي قبل هذا بلوه وهذا كودش المكسد بلاي كلا دبر ديسة قبل كان عقلي بلا هيدا وحيت الخير كله هرادات بربرني سان أنا قاعد سكسا يو قرصني ولا يقطع بيتر أنا بلي بس ساس جيري تونتا متكلم أنت على تابع حديث تونتا تيجي أفريا ما الله قصد عصمه وأنا مصيبة الرجل مصيبة كمان مصيبة ويغير كذي هرات إسنا إن تقولي كلا دستان كيسو دميسي ورجوليها ولا دسا لكن جوري قاعد يهرة جوري كلا الدمنية جوري ما دسيا جوري هرنا والدمنية نوعاس جوري ما دسيا جوري بلو في الصلاة جوري قاعد اسمه يسا يعني كقرب قادنا جوري كلنا دمية ولا في عافية دولي قاعد جوري الدمين تيسا أيام جوري كلا كل شيء هذا واحد يقول ترجع يعني كيف كريم بلاك نسأل الله العافية مركب وحيل هذا كم مسيري مركب هوينا أنت كم مسيري شيء تانك النبي محمد وشيء عليه الصلاة والسلام قال وحي تري وتزوجني نبي محمد عائشة وحيل هذا يقول سلي بعدها خديجة كذب ب3 سنين 7 سنة كذب لمشهد خديجة 7 سنة كذب أيوة عائشة يقول سلي مركب معناها هو محي 7 سنة كهر بيدمتي يعني صدح جوركيga صدح مهركي ومهرسيني محمد صدح سنة كهر أي بدي ما تسمعنا سو قارم أنا ما أعرف حتى أنا ما كم سيرة وتسير رسول وش يجي بلنتو وفين ترى مركز صدقة وقلي تري حول وقلي تري أنتو نف أري قال بقيمين تري حدي تري حاسك يورا خديجة لما تيا كصدقين يا أصحاب تري بحريرين تري ولا له بحريرين تري تلكو هي خديجة نين صومالي المانت إسلام كده متى محصية ما يحلي هاي
markay dhimatana islaanka la guriga soo gelinaya habeenkaas ugu dambeysaba habeenka mar haddii qabriga la soo geeyo islaanta hooyada ay dhimato bas maalinta ugu dambeysaba xasuusteeda war waxa waaban soo wada qaadnay waan dhintay dareen kale mara laakiin nabi maxamed intuu noolaa khadiija ayuu dhihi jiray khadiija sala allahu alayhi wasalam khadiija kaasuu xusayaa waa ari u qalaya sadaqa ka bixinaya naagihiina hore dhintay sadaqa baad ka bixisaa sadaqada xageed sadaqa ka bixisaa adinkaa sadaqa ka raadsadee sadaqa ka bixisaa su-ila nabiyu calayhi salaatu wasalaam waxaa la weydiiyey haweenka tan ugu khayr badan u fiirsada ragow xadiiska soo celisaan bay ka mid tahay lakin way ka qaldanta wuxuu nabigu yidhi waa midda markaa amar wanaagsan siisada aad deecdid waa marka amarku xalaal yahay waqtigiisana joogo marka aad fiirisana aad farxday marka aad fiirisa maxaa laga wadaa jacayl aad ku abuurtay war wax kasta waa abuuris hadda jacaylka waana ku abuurtaa gabadha markaad fiirisay ee farxad ku gelinayso xadiisku sheegayo iskama imaan waa in aad ku abuurta ka keensataa oo markay kusoo fiirso ay dhoola cataysa aad niyadda kuu qabada laakiin marka aad fiirisad hadday saa kusoo fiiriso ka war haddii saa kusoo fiirisa ka war maxay hooshla ku geeni ma cunay rabtaa buu dhahaya maada abuuran waxba maada abuuran abuur jacaylka waa la abuura wa fi samaai risqukum wamaa tuucaduuna bilahi ileh irsaaqadiina samada laga keena maca dalika ilahi wuxuu leeyahay shaqayst iyadoo irsaaqadii lagu qoray gurigaan iska fariisay mataqaan jacaylkuna waa risqi abuur waa la abuuraa waa geed qalbiga ku dhasha miro buu leeyahay miro iyo caleen buu leeyahay kuwaas waa inaa macaansato dhadhansatid oo dibadda usoo saartid dibadda wayna soo cuntaan laakiin midhihii iyo caleyntii haddaad dacar ka dhigtay ka waraan ama aad goosan kari weyday midhihii ha war qalbi way ku jeceshaa gabadho laakiin gooso midhaha jacaylka gooso doqonyo gooso saasuu nabi maxamed barya calayhi salaatu wasalaam nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam haweeneyda waa midda markaad fiirisid ku farxad gelisa laanna adaa ku abuurtay waa midhihii aad ku abuurtaa kuu muuqda laakiin qalafsanaa haddaa ulaamatid wallahi ad markaad fiirisid wajacbus kugu dhacaya leanna adaa inkaar qalabsaday markaad ka maqan tahay nafteeda iyo xoolaha udhiibatana ay ilaalisa waa ummad is aaminsan soo maa ummad is aaminsan baa doonaynaa marka ummad is aaminsan baa doonaynaa ummad is aaminsan barnaamijtan waxay ka qayb ummadda is aaminsan in la helo wala kala aamin baxay ummadda hala heshiisiyo nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la weydiiyey adduunyada maxaa ugu macaan addunya mataac buu yidhi waa raaxo yaroo kooban wa khayru mataaciha almar'a saalixa gabar wanaagsan oo ku fahmaysa haddaad heshid inaad macaan xaggaad socotaa ayada ilaalso ayadoo dahab ka dhigo quruxso jacaylka dhamaada hadday 100 jirto iyo hadday 20 jirto waa isku jacayl islaam 100 jirta hadda goor waxaa la weydiiyey haweenka jacaylkooda goormu dhamaada markaas waxay tiri midda haweeney ani iga weyn weydiiye haween 100 ka weyn weydiiye macnaa ma dhamaado wey haweenka jacaylkooda ma dhamaado hadday yartahay hadday weynta waa isku mid habar iyo gabar waa isku qalbi waa isku dareemayaal wey lidalika ibrahim 100 sano gaaray ku dhawaaday asagay xaaskiisa ayagoo waxba dhalin sanado badan bay wada noolayeen wax dhig walidalika ilaahay wuxuu ogaaday tabaaraka wa tacaala wuxuu ogaaday ibrahim xaaskiisa inuu jecel yahay ilaahay muuse oran caruur hadaa rabtid orag gabar guurso habartan iskaga tag habar duqo 100 gaartay weeye iskaga tag muuse oran saara muuse oran laakiin ilaahay wuxuu yiri wa aslahna lahu zawjah xaaskiisa baan wanaajinay mid dhalasan ka dhigay laana wuu jecel yahay kama maarmo warka waa wariya jacaylka rasmiga ma taqaanaan jacayl jabad qadaba dhacay jabad allah idin ku riday jabad ma taqaan ibrahim ilaahay wuxuu ogaaday ibrahim xaaska inuu jecel yahay oo iyadoo haddana 9 dhaaftay oo dhalay hadda maca dalika ilaahay markii ka bari caruunayso haddana waxa la yiri isxaaq baa lagu siiyey bal waxaaba loo sheegay wiilkeeda wiilku dhali doono ha isxaaq yacquub dhalaya waxaaba loo sheegay wiilkay dhali doonto wiilku si dhali doono magaciisa la hore waa loo qadimayba jacaylka waxa keena jacaylka wanaagsan ee xaaska iyo ninka qaba labada isqaba ka dhaxeeya haduu daacad yahay ilaahay baa taageeraya noloshooda ilaahay baa furfuraya ilaahay baa barakeynaya ilaahay baa wanaajinaya ilaahay baa garab galay ilaahay baa sida u barakeyn dhalma xataa iyada dhaafta ilaahay dhalmo siin kara limaada jacayl baa la rabaa iyo wanaag laana jacaylka iyo xubbu siis waa maxay waa wax sifaysan way saafiga wax sifaysan baa la rabaa saafi sifeeye waxaa la rabaa haweenka la tuqo inay ogaadaan ninku waa shimbir oo kale shimbir waay shimbirtu markaad ku orodid oo israel xoog ku qabo uu sii cararaya xoogaa hadalka u dabci aadna gabar yahaadna ninkaada u dabci xoogaa hadalka waa shimbirta sacabkaana waxaa loogu shubaa miraha sacabkaana saana la dhahaa markaasay sacabkaana intay ku istaagto ay miraha halka ka cunaysaa shimbir oo kale waay saaqa camaha u dhig kaala cunde si wanaagsan u cun u isdaciif
haween rag waa adag bay u saaxiibiyeen laakiin yaa daciifiya waxaa daciifiya waxa weeye dacfiga haweenka iyo jilicsanaanta haweenka ninka ugu adag jilciya marka jilciya waa ila jilcisaa saan dhaha marka shimiro kale marka shimirta dad ku boodi oo istiraada xoog ku qabo ka biidayso ka cararaysa marka iyo balaayo muran isu isticmaasha meel kale u fiirnay meel kale u aadayo waa ankaarayn marka saan u dheesaan mirahan halka ugu shub jacaylka tan marka shimirtu halka ku istaagaysa tanna waa groupsanaysa miraha halka ka groupsanaysa saadhe marka war isu dheelitiran nolosha isu dheelitiran nabigana calayhi salaatu wasalaam wuxuu haweenayda siiyey xaqa markay nin dooranayso guurka iyadoo inay istikhyaarkeeda ku doorato khasab ma aha waa daawo xadiiskaas khasab ma aha iyadoo hadday ninka ka hesho hala siiyo oo wanaagsan yahay laakiin waa lagu khasbayo ilma adeer baan nahayo ninka waa doqon gabadha lagu soo kicinayaayo wiilku waa mid doqon oo waalan oo in adeertii baa la siinay si wax oga haraan oo iyada war ilmo waxaad raadinaysaan qof nool la sharaftiisaad ku tumanaysaa qof maqana waa raadinaysaa doqon xun oo cayga daadinaya ayaad gabar wanaagsan oo qaranjo ah aad siinaysaan leedahay waa kusoo kicinaynaa asagana in wax ka haraan baa doonayn oo ayada maad fiirisaan ayada sharafteeda ku ciyaaraysaan intaad raadinaysaan ilmo maqan qof marka miro guntiga kugu jira kuwa geedka saaran looma daadiyo laakiin haweeneyda ninka iyadoo ka hesha ayadaa raadsanaysa lidalika nabigena wuxuu yihi alayhi salaatu wasalaam al-ayimu ay tayibu alati tuufi canha zawjuha garoobtu buu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam axaqu binafsiha min waliyiha weligeeda nafteeda ayadaa ka mudan garoobta ayadaa xaq nafteeda ule ninkay jeceshaha la siinaya rabto khasa ma jiro gabadhana walbikru tustamar fi nafsiha hadday gabar tahayna idan baa laga dalmaya ninkaan ma rabtaa aabe hooye ma rabtaa wa idnuha sukuutuha baa nabi hadday tiraahdo oo cadaan tiraahdo calaamadii hadday ogolaashaa laga helo hala siiyo laakiin khasab kuga lacag buu siiyey iyo waa oday saanay ma jirto dibaddu ka imaaday dibadda maaha wasaarad dusha allah idinka marxiyo dibad buu ka imaaday xoogaa u dooranayaan lacaga gabadhu noo bixinaya meelaha noo geynaya mana geynayo ma tugeyna intuu xoogaa soo kaxay hadduu Nairobi keeno meelaha telefoon uga bedelanaya haddana suuqay galaysaa jirkeeda laga yaana ganacsato gaaja awgeed ayaguna waxay leeyihiin waalidkii Soomaaliya jooga gabadheena aan naloo dhoofin kama qaada gabdho degan oo kaligood degan meeshan kaligood degan waxa dad baa soo waday ninku baa soo waday sallallahu alayhi wa sallam musiibo allah ku rido wax buu nooca ah oo kale kuwa dulliga way anagu kuwa xun baa haysana kuwa fiican baa yarihiin ma haysano baabka ka saar masaakiintaas cidna u dooday gabdhaha ku ciyaaraya Allah musta'an nin iyo xaaskaada markaad nafaqeynaysid soo sadaqa inay tahay ma ogid war ma nafaqeysaan waa u diideen war ajirka ma kasbanaysaan lidalika nabiyuna wuxuu alayhi salatu wasalaam wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah wuxuu yiri nabigu wax ma bixisaan oo ilaahay dartiisa ma bixisaan illa ujirta biha alayha wa laga siya hatta ma taj'alu fi imra'atik hatta xaaskaada afkeeda waxaad gelinaysid war biilka xaaskaada biilisa ajir waay niyeyso ha ka goosan irsaaqada Allah kugu celiyay ha ka goosan waxay raasiinaysid ha ka goosan waa u geli afkaad u gelinaysid wali nabiga afkaad u gelinaysid wali qaadada saanta u geli kuwa meelay soo bandhiga lama baaray mid xalaal loo baahan u geli adigu af qaadada soo qab raashinka u geli adigu hoo cunde kuwa soo bandhiga inay ku sheeg waxaas karad way tabcan way waxay lama ka jacayl ma istus baliya tasannuc ragga isxaysiinta ragga kamid tahay beenta jacaylka u geli afka adigu si nuj laakiin uu ka waswisay islaan waxay wax ku cuntahay ugu soo naa wal ugu soo hanu soo darsan ribadi wadaad nin ribadi hadda kor xalam taqaan nin oday wuxuu guursaday islaan buu guursaday magaalada laga yaqaan waagat oo khatar oo la yaqaano oo rag oo dhan u gaatamayeen kadib waxaa markuu guursaday 2 bilood kadib uu soo furay nimankii islaanta u gaatamay dhan baa canaanta waxay dheen balaaya illa ku guriid maxaa gabadha u soo fursad baa heshay naag xun bay ahayd buu naag ogtii ina qurxsan soo naag akhlaaq ma lahayn qofka asaga moodaa akhlaaq xumaan ay tahay oo doqon reebadiyo markaas maxaa war aad bay xumayd bay aad bay u duleysanayd akhlaaq xun bay tar badan laakiin afar xabayna kaga sheego maxay tahay dhowr xabo wuxuu yiri mar Allah la markay cuntada soo guranayso anay ugu soo darsataa digsiga ku reeban mayso kulay digsiga madaxa Allah ku gali ma fahmi waayay nin fahmi waay way ugu soo darsataa mid digsiga ku reebatay noloshaas ku soo koray noo kala gura gabar yahay gadaal wax ka cunay markay dhagaan wax cun reer leeyahay waxaas ku soo koray gabar yahay adigu nimanka kama horreey wiilasha
Soomaalida gabdhaha marka ay wiilasha horsiyaan wiilasha markay dadkan bay digsiga xagxago digsiga orda xagxago digsiga xagxagta waagi hore xitaa ma maagu samaystay gabdhaha waxa loo mirjiro waqti waxaan qoraa fahmada wiilkay fahmada kala tagaa liiji kala tago kaas aba iga sheegay wuxuu yiri gabdhaha waxa loo mirjiro jirin maxaa dhacay irsab waxa liiji jiru yiri asaab lagu sameeyay walaashiis la musta'an ninka wuxuu yiri mutaqaan kii kale waa maxay bari wuxuu yiri mar Allah markaan guriga soo galayo ayaa waxay leedahay habibi hayati soo dhow habibi lay ma dhaho maxaa lagu dhaw warsame ayay bixisay warsaga macna ma fahansan waxaan warsame aniga magacayga bedeshay islaanta waxay taariikhday dhan bay bilirtay magacayga bedeshay habibi kula habibi musalla guriga tan kale waa maxay bari tan kale waa wixii mar Allah guriga markaan soo galaa ayay inta hab isiisay oo dhunkan taabin ay tiraada aniga musxafka quraanka miyaa lama dhunkado quraanka miyaa oo ka nolosha raggiisa yerjir saas oo fur dulli waa sagata gobi war dulli ara dulli ma hande taway marka taas balu fiirsada rasuulka kaleey salaatu wasalaam wuxuu leeyahay hatta xaaskaada afkeeda waxaad gelinaysid u geli adigu u geli oo calali calida ayay waa cadageeda ku rumayo oo kaadi waxaan wax dhintay way na dhaafi rasuulkeena wuxuu leeyahay salaatu wasalaam haweenka buu leeyahay fattaqullaha fi nisaa nabi maxamed baa leeyahay ilaahay uga cabsada haweenka fattaqullaha fi nisaa haweenka ilaahay uga cabsada nooc kasta yihiin kadibna fa innakum akhadtumuhunna bi amaanillah amaana ilaahay baa ku qaadateen amaana ilaahay baad ku qaadateen xaqooda ilaaliya warwa qofka xaqa haweenka jabiya amaanada ilaahay buu jabiya ilaahay baan doono maanta qiyaamo ragow dumar oo adinka ka bax dagaalku wuxuu ka dhaxeeyaa hadda dumarka ragga Soomaaliyeed iyo ilaahay buu ka dhaxeeyaa bas ilaahay bay difaacay ilaana amaana atiin amaana ilaahay baa tiin dumar oo ilaahay qacanta u galiya amaanadii markay dayaceen ilaaha la xisaabtamay ilaahay baa qacanta ku dhigi doona ilaahayna isku gali doono waa la ogyahay inna akhdahu alim shadiid aadu darad marka nabigu wuxuu leeyahay fattaqullaha fi nisaa fa innakum akhadtumuhunna bi amaanillah wa tahlaltum furujahunna bi kalimatillah ereyga ilaahay kelmad ilaahay diinta ilaahay ba farjigooda ku xalaalsatay wariya u fiirsada war gabadha ma la dhalin ma taqaanid meel aad ku baratay lama yahay isku beeyad ku minano isku hooyo mina dhalin hal eray ayaad ku xalaalsatay bay aqbaltu wa ku guriya ma aqbaltu ala kitabillahi wa ala sunnati rasulillah adahday bas xalaal ku noqotay markaad ka siibisaa hatta waxaad daawanaysaa meeshii hooyadeed iyo aabaheed aysa daawanay hal arsal khair nagsado ku jiro barakallahu كواد إن شاء الله تعالى ورلاها دعوانا دمان وتأد من علوم هالعليا يا شيخ موضوعا آد مهم كه ورلاها دمان إن شاء الله تعالى كل جرس مركوات مجعي وعي دروس هذا كوجرا عودك هذا مرة المقرأ عودك بس مركا أحبابي الكرام وحال مركا إذا كوعسنا إن شاء الله هذا سنة إذا كنت متمقرن لسان وحيد كنت متشرجرين ليسو الشرجرين قولك أيام كوسو شرجري أنا قاعد دروس كأهانتي إذا قولك كوسو شرجري الحمد لله لأن الحرب قبل بدل المروق أما مروق يسن إن أركان إن حقه ده الدين تأيسن مسكين بتر وحقه ده حق لسي ومقام وناكسن والله دعني والله صد عنا يا بالصراحة سي واضح على الجنة وعلى شيء يا دور الموت كشفات يسوق جريسو خيانة الرجع وتان الريم بدن بالله شيء يا تا إنك كاميرا سنين وكرات سنين ما عندهم ركا يا موجع كلام أما شير تا أما جود بنت أما عام كنا نقول ما يجي كاميرا ما يوافقين وفائدين تا قرر كاس ضدك إبنت وشرية ما دام إنك نرجع وين جوجلنا ما دام إنك نرجع عندنا فرحة رقم بفاسن هيدا فاسن رقم بفاسن ما دام فرحة جوجلنا جوجلنا فرحة جوجلنا marka waxaan ku codsanaa insha Allah taala intii na garanaysa qoraalka sida loogu soo share gareeyo asxaabta sida invite loogu dhaxo oo loogu share gareeyo waxaan idin ku codsanaa insha Allah taala mawduucan inuu ahaado mawduuc mar walba insha Allah taala uu soo galo meel walba galo uu tago hadda ma sha Allah gabdho badan baa ku jira khayr intii na ku jira insha Allah taala qol walba lama gabanayo live loo soo fadhiistay sheekh ustaad ku soo fadhiistay wad u jeedaan waxaan idin ku codsanaa marka xaqina idin karabna insha Allah taala gudbinta iyo sheergareynta iyo u yeerida asxaabta iyo sifaafinta khayrka iyo adinkeedii ku xirada insha Allah taala inagu wax kale uma nimid waxaan nimid inaan xaq sheegno qul il haq xaq ku hada qaraar baha ahaade xaq ku hada qaraar dadka qaarkood ba qaraarsanayeen
geli kasta gabdhahan meelaha iska taagtaagana meelaha qoraalka iyo sida qaybta loogu gurubyada loogu sheegay insha Allah wallahi maana magac idinka doonayn dhagorta Allah idinka muxiyo rag baatiin magac idinka doonayn mana idinka rabna laakiin dadka ciilka badan baa xogaa rabnaa inaan la qabsano xogaa ka rafano wax yar aad baan idinka mahadcelinaa intiina sii gudbisay jazakumullahu khayral jazaa ilaahi subhanahu wa ta'ala abaalka xagga ee baka fila tabaaraka wa ta'ala waxa weeye unsur akhaaka zaliman walaalka u gargaar hadduu laga gardaranya hadduu gardaranya ragga waan u gargaaraynaa dhaalimiinta ah dulmiga iska daayaan leenahay gargaarkooda oo kaas ah madluumiinta kinta ee dumarka la dulmiyo waxaan leenahay waa kana xaqiini dhacsada oo iska celiya tuugada casrigan idan tan jilicsanaysa diintu sidaan idan kaga hashay dhageysta niyada dhista oo wanaag mustaqbalkiina ka fakara wixii ku soo mareen hore u ilmaa saasaan rabnaa inaan dhahno unsur akhaaka dhaliman oo madluuman igala qayb qaado taas walu fiirsada nabigeena calayhi salaatu wasalaam farjigoodaad ku xalaalsateen kelimada ilaahay allahu akbar wuxuu nabigeenu yidhi calayhi salaatu wasalaam dumarku raggay ka tirsan yihiin isagaa nabi maxamed ahay calayhi salaatu wasalaam inama annisaa'u shaqaa'iqu rijaal haweenku buu yidhi raggaa laga soo jeexay war jeexaadi ha dhibin oo hadli oo ha xaqir adaa laga jeexay war jirkaada ma dhib u qurtaa war ishaada ma waa jirkaada qayb jirkaada ka mid a wey ha dhibin ha xaqir nabigeenu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam إنما النساء شقائق الرجال ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم حديث صلى يعني كريم نودا سوى سكلنا أيان السلام وسمعنا صلى الله عليه وسلم ورسول الموت المام dadka ugu dhow nabi maxamed dariska jannada la darsi doona waa kuwe nabigeenu wuxuu yiri sallallahu alayhi wa sallam akmalul mu'minina iimanan wa aqrabahum minni majlisan raga u fiirsada dumar u fiirsada nabigeenu wuxuu leeyahay alayhi salatu wasalaam أكمل المؤمنين إيمانا إيمان دميستر مرة بتاع بحب بقولك وبقولها ها قف بورهالينية إيمان كمؤمنين تكن أقول دميستر إيمان كيسو حويه أقربهم مني مجلسا وهدنا أنا يقصر دو قيامة درس إلى بنقونية درس نبي الرسول صلى الله عليه وسلم ها ألطفهم بأهله حاس كيس متك وجل عصام الله أكبر هذا هو الحديث مر الله ما الروايات الصومالية دي هو ولد وابر مكيني أيوة. ما والحديث حكمة الصادق المصدوق يا هلا يا هلا سمعت حديث صحيح أكمل المؤمن حديث صحيح أكمل المؤمنين بوستيهان ولو عشرة إن شاء الله تعالى مركي أنا أصلي حديث كاس إن شاء الله حديث نسكريها في ريال أكمل المؤمنين إيمان وأقربهم مني مجلسا ألطفهم بأهلي درس النبي محمد جناد مربتها إيمان كذا إنه بحسب مربتها حاس كذا أطر ما أنت بحسمي حسمين يا ما كان حكى فهمنا هدول حمايو رسولك وكفوكيه إيمان درس لما نقوليه درس لما نقوليه إيمان كيسنة كفوكيه أيوة كفوكيه اسم مهم هو خير النساء أحسنهن وجوها وأرخصهن مهورا بانبوي وفير صدا خرج وفير صدا هواك يا خير بدن باي كوه ها ugu waji quruxsan baydin tuseen laakiin ka faa'iideysan weydeen ugu meher kaydin fududayeen laakiin waa ka faa'iideysan weeyeen haddana way idinku adkeeyeen lianna karaamo uma haysaan haweeneyda la guursada in biri la furayay ismoodaysaa marka meherka way badinaysaa si hadhow caruurta u dhasho meherkaasi ay lacag meel ugu adeegato ay maqaayad ugu furto laana ku biili may sidaas hadda meherka u adkeeyeen u badiyeen wax ku xisaabtamay laana ka fikri mayside laakiin hadday axsaan iyo wanaag ka arki lahayd war waxa rabti ugu meersay ku dhiilahay aamin agtaada dhikay ilaa amaan laakiin way ku qaadi xaq bayna u leedahay laana mustaqbalkeeda ka fakaraysaa ama la hadana lama si hadii qaali laga hadii meelka 100 kun laga dhigay hadii 2 kun laga dhimo siyaanba carka laga qaad bulay daag ilaahay ba ka qaadi doona haraati iyo jeesta kale daali doona carka laga qaad baratay iskeen xuntaad ka barwata laga qaadi maana xub ba laga qaadi marka ilaahay amarkiisa fulin weyday waatu sadaqaatihim ay waajiba meherkooda waa waajib wax laga baryay ma aha midna meesha wuxuu la fadhiyaa beenta sheegay waa maxay kuwa xunoodu heeda beenta sheegay waa maxay waxaa ku weydiiyay ayuha ayaa muxuu ahaa aywa adaa ku khayr la qsiye awes waxaan ku weydiinayaa qof baa ku soo wacayo yani nin baa ku soo wacayo qof kale maahane nin baa ku soo wacayo wuxuu ku leeyahay sheekhow gabadhii islaanti waa ay dhibtay ma aragtay inaan kala tagnaan rabaa ama aan furo marka meher migu leeda gule maxay kugu dhahan wey
الى يدكو عفيسو كتناسش مويا لكن زمان كان ما تلش وحا عجيب ايه رجع قاركود على طول 6 توس اللي ودي دم ما هيك قبل اي سنين بكل بات يا والله بدن مسيا حالا waxay leedahay gabar nin baa furay lacag way haysaa dumay ka shaqeystaa ka soo celal weyn calal kuusay lacag way haystaa baa ka waaya islaan kale guursaday naagtiisa lacagtiisii meerka tan 4-5 sano amray mas wiilna waa u dhalay waa gar biilkiisii jiray qoosna wiilku ku biilay xoolanaas dumay fadhiya Abu Dhabi fadhiya halkaas usbuuray wuxuu istaagay waxaan ugu tagaa ka soo jiiday harati iyo jeesta kala daala wallahi ayuu istaagay nabiga wuxuu leeyahay alayhi salatu wasalaam bal u fiirsada walaalayaal wuxuu leeyahay nabiga alayhi salatu wasalaam u fiirsada islaanta haweeneyda wax ku karahaysatay wax ku qoysatay meel kale ku fiicanta wax kaamil ma jiraan inta yartaa u dulqaado wuxuu leeyahay la yafiru nabi maxamed leeyahay yusakaga cararin mu'minun nin mu'mina mu'minatan haweeney kale ee mu'minana yusaka carari sabab in kariha minha khuluqan dabeecad hadduu ku qoonsado dhaqan oo karahaysto radiya minha aakhara dabeecad kale leedahay meel kale ku wanaagsanta halkan cududa ilaahay waa dhameystirana bilaadku ma dhameystirnay laakiin intaasan ka arkay ceebta faafi oo suuqa ka sheeg war hadda dabeecadan ku fahmi weydid mid kale aad ku fahmi dabeecad kale dhinac kale ku fiicanta dhinac ay ku fiicanta ku amaan si tan iskaga dayso laakiin halka hadan ka kululeeyo kii ku wanaagsaneeyna waa ka kaliisa sida nabigeenu leeyahay alayhi salatu wasalaam maxaa garan maysan innaka ida kunna azim wala qalb mid baa soo qoray hadda hadalkii soo hada muqaddimada hormariyo Soomaaliya waxyaalaha soo xasuustaan way laakiin waxaan u sheegay in kaydahuna ceeb ma ahan in kaydahuna Zulayxa laga hadlay Yusuf jaclay kaydkan waxa laga hadlayaa xeelad ay u sameysay Yusuf in gacanta ku dhigtay la jacaylkeeda ee ma aha xumaan ma ahan yaa sabi xumaan ma jacaylkeeda raadinaysa wadooyin badan bay u martay qof ay adeegsatay xaq kale martay wax badan isku dashay gurigii soo xiratay hayta la kabeetay way xirtay way cadaabtay si uu jeclaado waxa u soo jiidato jacaylkeeda waxa u maraysa islaanta dad wax jeclaato meel kasta ku maray waxa say ku hesho wax kasta isku dayay wax walba dhibisa asoo wuxuu qabaa xeeba ordo quraanka akhriya aayadaha ka horeeyay kooda dambe akhriya sida suuratu Yusuf macaadi tafsiirka fahma laana 80 in ka badan aayado isu qisada ka warramay Yusuf ya guursaday walaalisi Israa'iil guursaday ordo quraanka soo barta kor baad ka oo sirta quraanka barta ruuxa ku jira barta quraan ma taqaanaane qub iyo qalax baad meesha la fadhidaa kaydahuna ceeb ma aha laakiin barnaamij gooniya waxaa jira aayadaha noocaan iyo xadiista noocaan ee rabbu qaladka ka fahmeen iyo kuwa afeerka lacun baa laga abuuray caqligeedana su'aal ku jir dhahaye asagoo barnaamij gooni ah iyo arrijaalu qawaamun iyo hawlaha waa ii gooni mar gooniyaan si fiican haraati iyo jeesto iyo jilib iyo sabaaxato kala daali doona ana idin sheegaya de taas waa soo socota halmaami taas waa barnaamij kale insha Allah taas waa barnaamij kale waa diyaar waxaan ka hadlay oo dhan goorma qoray bartoon sanad qowda qoray waxaan arkay markaa iska qoraa maalin ba fursadeeda soo baxaysan dhaha yani hadii la guriyay ma niyad jabin in faraj iman doon waa aaminsana waa iska qoray sanduuqayga way buuxa waraaqo aan wada qoray barnaamij kasta wax ka qoray sanduuqayga waliba ile xasuus gooniya baa ii yaala waraaq kasta igu jirta mawduuc kasta mawduucina kamid mid walba hameen baa la soo baxay ma baraadinay meel kale u raadin laana waa hore qoray waa horaan dareemay dib lagu hayo laakiin fursadan u waay haddana u helay waana u heli doonaa marka soo socdaan in leeyahay jeesta idinku qabanaya runbaa idin sheegaya jeestada aayadaha jeestada qur-aanka jeestada sunnada baa idin kala daalaya tiraadaano xaqa soo tufta وفيرسدا وحلي نبي قلنا عبد الله بن عمر بحديث كان ورينيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما لا ترتمي كرتا كبيس حتى ما قالته قال وحي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سورك الله بان مقري رقم انت النور يكون ماشي كهليو حديث بانو كان كهليو دغيست سيكون في اخر امتي امتي الى اخر كذا وحا ايمان دونا رجال رجو اكيال يركبون على سرج وصرير سارن او غوري وتو او ديارده وتو او اسحيسينيه او تاد خيران او كركو قرحان نيمان نوعاس اخر سمن كيمان النبي عليه الصلاه والسلام كاشباه الرجال رجو اكيال اذا رجو اكيال ما بكين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رم بدين ده وكان رجو اكيال نبي محمد بن الشيخ كاشباه الرجال رب بيوجهين رب بيوجهين رب بيوجهين رسولك إذا كورمي وحديث عبد الله بن عمر قدان مين وكوكالي حتى ما مركرتا دقيست ما يدن لي إن كيدهن وصوص عتامين كذا يا لجوا إن هذا المعصر صدقوا سحنتا
كان عند أصول إنه كثير يا من جرير الطبري ويا أما قرطبي ويا أما شعراوي ويا هالمرة قال حقرا وذلك يركي ويلكي إن كيدكن عظيم سوقري حتى نوع سوقري على الرجال قوم نفس الجواز لزيها قلبي يقول له جماعة إلهي على مضنا يعني دي افتتاحي بقول ريبة لا وحي حسوستان ركو أنت فضل وحاسة كمان لكن إن شاء الله برنامج قولي كواس عبين دونا والله عبين دونا هبين كديار نقول فصل كصح لا ليني شيء كوي خلدنا ليني شيء ولا إنك قفيا وحلا إنك كوريا فصل كصح لا متك خلدنا ولا إنك سوسي بقى حبط مر فك نبي مركز السحر عليه الصلاة والسلام إربطها الله بيتوانك حب اللوجو من السحر كي ولا أعوذ برب الفلق إربط باب بودا فك ولا أعوذ برب الناس مد باب بودا ساسو كله بوديسان إن شاء الله حمان نقول جنب بحية مركز حق ليني شيء فك بتبسيب بوديسان فك بتبسيب بوديسان وكان كأشباه الرجال رجوا كيالوي والرسول كلام حي سمينيا ينزلون على أبواب المساجد الباب المساجد التكتاغين ولا يكون وارك يقرب تقول دميس وأنا داود تقول دميس ساعتكم وارك والله وارك كوا وارك عيب حشاد ما أدري يا حدا ما شو صار لنا كوي أنا وارك وده تلا ووري كوانك مساجد تاغين كأشباه الرجال ينزلون على أبواب المساجد الباب مساجد مركز وبحان ككري مس كمان كان قصده وتاجي ماشي وتاجي مساجد كمان مش لك لو سكت تاجي ما عندنا كم حمب وصاب على العملية سمعك يا سلام والله يا رسول الله أقول سلام كمان يا بنو بيجي عليه الصلاة والسلام والله يا رسول الله بتشوف كم بقى ساعات كله يبدي بيس ومساجد كتير مساجد حكومية ها وإنما مساجد حكومة حتى دوما كحمان يكون حد قد بيه ورقوا كيار والنبي قاعد يكور رمية النبي قاعد يكور رمية نبي قاعد يكور رمية دقيس صلى الله عليه وسلم ينزلون على أبواب المساجد دمر كل محي من كويت يعني ما دمر كل مكان يعني باب المساجد التاجين ويت يعني دمر كل محي سمينه نساؤهم كاسيات عاريات دمر كل واحد يعني مساجد التاجين الحمد لله رب العالمين أنا وحنا حكيت كمركز كفلان كنت أسولجي على الكوس كنت أسولجي ريكس مركز ما تنوى فينش إسلام تسوى عباني سال رم باهوس وقشدن رم باهوس وقشدن رم باهوس وقشدن ها مركب إذا معنا ما مسكر والله ما مسكر وابد من يدعم مصاب وحنا يقول وابو عيل كان ده وحنا أركي يوحد قرني سينساب رقم مثلا من كارك ما ولا كرواد مع وين الله وأنا حق السوق بيا اتقوا الله فاتقوا النساء فإن أخذتموهن بأمان الله أمان الله بقصوا قالتين وكوجوستين الله وعبصدا آية إذا لا يا ميل كستون تاجنا مد بلا ما تعسول عني متغنى إن مد ولا لا كم ذا ولا تهاي إن كيدهن عظيم الرجال قوم سعر عني لكن أسوق قولي برامج كاس يا لقوة ولا لما أنت تفسير كذا سوق على تفسير كذا سوق كأن محمد يا إمام الطبري أما إمام قرطبي أما الشيخ الشعراوي أما ابن كثير ويا ابن عاشور ويا هذا ما قصده عاطل ديكوراركي دور من إن شاء الله ممكن مساجد على شيء أنا بصباح حمر مقدشو حمر مساجد على شيء أنا بصباح يا قبل ما يرفع ديس ويني سنة سكبرونيس بس حكوي هاي ما حكوا راعي ووريست نقول لحدي دو قبل الصوماليات ورئيس الصوماليات وحقته عن كنا والله وهند مركي مغنقلنا ومركي دون كوسور جيسو وكجار والله حقوا راعي ولا شيء قبلها حقه تاجن كوري حقه تاجن مريها دحر وحيرانتها وحين ربان إني قبلها غلط قالمان وسوحي هيدني نبى صوتنا على الجياب قبلها يلا لو يلا قرني نينك قبيلة نش أسأل صدري الله محمد ما في حال لأن أنا أسأل صدري كذا ورمي نيو برنامج كومهم والله نيكي وبحيتر أن نسكت عليه كوري وسؤالك سري كدي وحيتر قبلها أنا كوم أنت أن نسكت عين كور وكبل على بيتي قبلها ولا ليس نودره مر بعايدين إذا بعد ما رك أيضا مركها هل اللي بينهد قبل هل اللي بينهد وقبلها الصوماليين أن ما أنت داون إذا كنت جاي أنت داون دون طبعا نكاس مهر كي لابلاب كوكو بيسدي أيضا استضيع أيضا استضيع دفاع قلب شرفت هذا هيك دفاع أي مالك هدي شرفت هذا أيضا لا حول محلي كيت كيس لكتو يا جورعة
وكهلا بري هالكاسد أوينيسا هذه هي بهل ويرجع وبهل وقصة قبر ليش وده أساسه بقى قصة قبر ليش وده أيوة أنا قبل أنا قبل أنا أركيبه طب تاسع marka waxaan leeyahay hadii gabadhu ay sharafteeda is ilaalin weyso in aad cidno ilaalinayso ana ku tashanin rag inuu zamankan ragga joogo qalla ma yujad ana ku tashan taasan la wadaagaya walaalaha hayb la musta'an wallahi qisadaas way mid arag waxay ka sheekeynaysaa gabar ay soo dirtay qisada haysa waxay tiri gabar waxaan ahay bay 19 jir iskool baan dhigtay tiri wiil maalin ma kana iskool ka soo baxay oo gurigayga u socda ayaa wiil iga daba imaaday cabaar buu ila hadlay wuxuu ila hadlay bay tiri la markaa si wasbaarayna ma ku siin may ila guriga u dhawaanay wala soo hadlay kadib wada waska naxay oo asna meesha af mishaar buu ahay waasiye lambarka uu soo wacaminkii wuxuu yiraahdaa iskuursana waa isjeclaynayna aan waxa ku yiraahdaa ma iskool baan dhigtay adiga af mishaar waa markii wuxuu ugu qancay in iskuursana gaar ahaan guur hoose oo yiraahdo marka iskoolka dhamaysana si caadi u busnaa yani waxay kale ku mashquuleen dadka guurkaas maaragtay wuxuu dhahaa dib dambaan ka faafinayna iyo waxaas waxa dhacay intaqana sidii bas kayso miskiinta moogta in loo danaynayo mooday uu gaaday kadib waxa dhacay tiri maalinta soo hooyo waxay tiri waxaan ku yiri hooyo waxaan aadiya gabar xaafad naga fuba aadiya miskiin asaas yeelin mar dambe walaashay yeelin sharaftaada meel lagu soo cunayo aadin godadka ruwaayo way waxa bahalo way godaw gali waxay tiri hooyo hay waan aadiya asaga raagaare waan qaadi gaarana meel baan la geeyay 100 kilomitir magaalada ka soconay meel baan tagnay geedo badan nin iyo cimaamadi koofiyad qodo sheeshay isku tilmaay sun alla cabsiye ay meesha ka soo bixin kale هذه واحد اللي مهرك هذا وامي سكون دوران هذه مهر يجور أهرم بالجري ماشي لو بدو ولا حفظية كده بنا لسوق عليه هوتيل اللي سيكريه ولا سي أبا بلا نلقيه أنا واحد أقول إنه نلقيه بقى مركز عشان نوعي لها كشويسة ما يقول هذا كنت بحوق من عنا ماشي شو هبين كاسو حقوق عيال كبرني بديدي سكاكي باشاري صبحين يقول إنه هذا أنا مرقي سرها كوايد دريمة دي بعد بدل كده بنا أوربا يوصل بحياتي هبين كي بوحو كيدين يسنة بدل كفاش تقي طف طف هذا يقولون كذا مركز حد عليه مركب مهرج وهذا نوع يريد قبل أن نمسك بكرة والله في صدق أو في وحامية وريا وحامية بدون قال أنا وريا وكون كذا حتى تقول لها وأسكت بس دنيرنا ما نحن برتي إن ما نجوا حلال أنا أسكت أسكت رئيسية هذا أسكت بس حلال لكن مو إنكر هذا دبادي دبكر وكسدرون كون إنكر قبدي والله بدي مكانك قبدي كو دبرنا ما دي وكعياري في الأور بوياري وكون كذا أور وياري لبو أكو ضف وصدق قف كساس وكره كود على مركز قلبي يسمع أما مسكح دي سمع دمي كاس دمي قف واتشيلس كسرعنا يوم كواس إن هذا رسولنا وقرقاتين معهن إن هذا النبي صلى الله عليه ولا جبر الله النبي صلى الله عليه وسلم عقبا كذا ما جبر الله النبي صلى الله عليه وسلم هسه سمع تبري لها وهو في عنا لا كبر ولذلك هو يفعل أيام مثل هذا القربانيسي وحيد الجبر يويل باندري أقولني ما كسر كوريا خير أبونا معه وقولين تقول دحلا أو دحلاي هو اللي سلسلة تقول لي إسكت كون جدي قول كنا قلب بس حنجر الجبر أنا قلب بس حنجر مالتي الدم ما حمين كده واحد ويل قبلاس كسر ما شاء الله ميدان تفايس كوا ميدان فلان بقى أفر فيديو فرتان أيوة هذا مالتي حمين كده حقول هايو قبل ولا شها وربيل هذا هاي حتى بابو كان أوري هاي سوري والدته قبل أسبوعين ولا شيء ما أدا أوري هذيك أرد جورجا وجرا هاي ما يحكوا تري جورجا تاو بس أنت وين بدي سكار سو عملنا سوا قبل كله الله الله فيسبوك أو غفر أما لا عياري هكذا بيرو شيء أيام كيرو هاي ولا شيء جورجا كوسو كذا أرد أيدا وحام كسبه هاي ما والدته ولا شيء سوي كسمه ما أيدا كامل أيدا كسمه أرد على شرفتي عندي كذا ما هذا ما كسبه تري هاي موقتها ولا شيء عاو جورجا نمرق الله فديه ما حدا قبل الإسلام أنت أكون مشغول صحيح ولا شان نين تبانو شو ميل جيسين وسووري عاو قولي الله فدي سمو أدينا نقوى كلا هذا يسته واحد قبل ده كلا كسميسي قبل ده ولا شاب يسببين عاو هذا سمرق الله فدي قولك هاي صدقوا ما هرجع من صدقوا نمكم مركي شهود وقاتنا عقل مرة حيوان على مرنا واحد وشيء هاي كيف يكاس وارتوا وجاهل مركب وبلا مفيد كان هذا كيس وسيل بدي وعساق هذا قال تعالى واضربوهن قال تعالى كلها قال تعالى واضربوهن هو فاسرين وبرامج كسوة كاس إلى ذلك وحليا واضربوهن يعني هذا القراع وكسوة تمكتب وحليا أو يفعظوهن
واهجروهن في المضاجع وعدهن ليش يعني وعدهن متى ما ضرب النبي امرأة قط ولي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقراعين واضربوهن سك واضربوهن ما يا لو قراعيا لو جستينيا لكن آياتان يكون لم يتكوا صوص على وح أنا كفكري ربنا وحن صوّدا أو كهالليان أنا هروجا أو وكفكر وحن وديان تفسير كذي معاني تاريخ لنا وإذا هي وسوق فيا كوانا كله كوانا كله وندي في قلينيا إن برنامج كسي ونودي في قلينيا كان حتى سوق قبل هذا بحاجة جوازه أسأل اللي ما أهانهن إلا لي ولي وكم مقطع والله صدق النبي واقف شيء النبي محمد هو شيء هذا معاه النبي محمد هو شيء النبي محمد هو شيء يعني ما أهانهن إلا اللئيم آياتها أنا تقول عيار إنسان حتى ولادك صومبرين ولاد حموية حتى يصومبرين أنا إيدي شيء يقشن كأنك تقول فيه آياتها يقول الله متكرر صوم الله تعالى تجي متكسبات تجي شيخ تجي عيد كلامنا ما يكاد هذا بدون مساكين اضربهن كلها سأقرأ عيسك في عن سأقرأ في عن راح طبعا وينك يعني آية فصل كذا ما يقان وح الله جوض مرة صوتك صوتك تقرن ماي آية ومقالة ميش كتار لا يا صورتك تحتوين سوابون ما يقان مد وداد وريرسنو بايا ودوم كان عيب وايد وما هك قايلين ورا واضربوهن وايتا واضربوهن وبنين عقل يسويد آية قصي كان ليس واضربوهن هو كياش ربط واضربوهن وهذيك كأشباه الرجال على قرنت صار استوى أنا قاعد يقرأ آخرين إن شاء الله تعالى marka waxa la rabaa inaynu fahanno hawshaas marka qisooyinka noocan arrimahan ku saabsan qisooyin marka waxa raggan dardamayo kuwa ay tahay wax igu sameeyeen aniga jiridka tay warka ay saaxiibo sheekh ma naga deysid aniga sheekh bay deynana wariya hoy war sheekh bay deynana ka war hawa sheekh hay deynana sheekh ba bil aadan bala abdullah magacayga la yiraahdaa abdullah igu magacaaba hooyada yaabaha ee la baxay kaas sheekh leene shashooda ina si jabtay sheekh leene هاي بدي هنا حتى هذا هذا يصير ده وسكوك يمد أنا عبد الله بالي هذا مقعد عبد الله شيخ لما دار عبد الله بالي هذا صابرت عبد الله هي مقعد كي معاناوي أحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن عبد الرحمن أيوه أحب الأسماء إلى الله والله مقع ما أنت العلم بحال بالكبود جرى كبود بلاي أفوف درو أفوفية يعني سوما الأستاذ مقع حليست مقع حن والمها الله بحي سامي بكوية شا حتى أكيد هذا صارت السوق هذا نركبوه أبي لهب وأبو لهب مقع عيسى أبو لهب مقع عيسى أبو لهب ما هي وح عبد العزة ولا بحي أبو لهب محاول بيسي سيصلى نارا ذات لهب سفدي المامتس نار أول الوصاحب لذلك مركز جرى كبود وحنا فرعون بدري وقارون بدري وهامان بدري وهامان ورسول الله خالق قبيله الموت هامان ويا هامان أيوة هبل وهامان معنا ودوني وحكس صدقني ركز على هامان كوسيدي فرعون ولا فرعون بين والله فرعون بين الله فرعون أسأل دوم جاي هاني سنجري فرعون سجى آسي قرع جري آسيا إلهي تري رب ابنني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين إلهي تري وعذابي تري عبد الله بن عباس وحيري تير بوهر كحري جري قعنت تير كلام قعنك لو كحري جري قعنك لو كحري جري لقطة تير أفرد لو مركز قرحك وعذابي تري آسيا ونبي يقول هواينك كوكو ما يسترنا بين مؤمنة وبدبادي سي موسى وينتي سيرانتي بدبادي سي سوى الدين هو إن عاقلة فرعون فهمي ويتقوا بلد بوها أنا ربكم من حلا ما علمت لكم من إله غيري محمد شوقي ولا يقول لي أنا رجع محمد أكتر فرعون بطايع فرعون بيت ما درتي مركب أول الله يروح يد اللي يعني مهم إن نفسه بندقنا وحى هلستا الدمر كأنه ينرشين هذيك النرشين مقدي بيسي جلسة لا دولة بان لهلين ولا شعب بنكسن بان لهلين ولا قرن بان لهلين ولا هدي أنا أقول واحد نكسر بان لهلين قرن كان سي بابا أيامه وصيح معنا هدي تكون نكسن هدينا دومكين ونكسنان هدينا أمدينا أطورين هدينا دتك سوسكا هدينا دتكينا وحقبان هدينا دومكينا وقرن هاي والله يندبر سينيا
horta Sheekh Cabdalla Faaruq aad baan kaaga mahadcelinayaa akhi kariim Ustaad Cabdalla Faaruq inta xawani karta inta shay karta kii caaqil ahay wax qaadanay ana sidaan dhigaran ودالت وانا ما هي كسوسي جاكاتا ايوه عاوdan waxay u dhashay fikirka aan ugu dhalanaa saacado kor mid ugu soo mid u dhalay mid waa sii socona fasadi wasi aad si diyaar insha Allah hawlahay wada halka ka soo insha Allah ta'ala inagana kula garab taagan ma sha Allah dadka iyo soo aqli oo dhan ahlul khayr oo dhan insha Allah inay soo xaadiraan taawad insha Allah ta'ala waa diyaar horta kelmad ugu dambaysa aniga horta wala fashilay ilaahay subhanahu wa ta'ala عيب هاستو ولا عيبيسنيه ولا عيبيسنيه عجيب فيه ilaahay subhanahu wa ta'ala dibka iyo caybaha iyo waxna dhan waa u jeeday dibkan geysanayno dumarka oo geysanayno iyo caybaha aan leenahay waa u jeedaa saasay tahayna nalama soo fashilin laakiin la yulil الظالم لكن إذا أخذه لم يفلته والله سترى عقلي يشطوط كان هدي لكري ويسمع والله بنيا لكن ما له حاجة تاه أن عندنا نقف كلها سأدي بناك الإسكينة بناك وحول قرنين الإسكينة وحول قرنين ما أنت سنة ودي دارنا مهم كذا إن شاء الله نيجي قبل ودي لي مهر كذا ما استتصور كان قبل دباتين عني وريا قبل بروحه وقلن شابه ولوجه التاجين oo dhisan oo xabadkeedu taagay oo ma sha Allah oo quruxsan oo aan la heli karin oo quraysh ah oo dunida dhan ay raadinayso oo gabal ah oo waligeed ninna uu samara ka fiirin guri kaliya la galay markuu miideed cunay Allah ka soo matajiye ayuu xirina waa furantahay meerna ka ay qadbay gabdhaha in badan waxay isdhahaan ama ay niyadooda ku jirtay ama niyadooda ku jirtay wadaad ma arkaysid dhahayo إلا أنه ده جبريه هي فديسو حشو تكدع آمس نكال كدبري ما هم جنون كبلاوي يعني واحد بدن يعني قارح كل يقول لي وداد وحقوق عارف وداد يقول لك ما قلنا وداد اسكب الدابة أنا بلا آدم بقف بلا آدم حتى اسكب الدابة وداد وحقوق أرني ما كان لي وسيدان واحد يقول لي ما أعرف بهذا نية دابة دي سنة إن النول هي أو مدي تشرتو أيام هذا عليه وأنا أركبت حق مركز قبلها إلينا صوبي هنينا علماء واوين حتى دي السوشيال ميديا هني ويكون هذا حتى وقتهم هي لكن تذكر صباحي وقاعد تذكر صباحي أيوة تذكر صباحي إن شاء الله وش وضعي مركز هالكاسين تاكسي سعون إيسا وحوي إذا لما تشوفينا هو ربنا إن شاء الله تعالى برنامج تو هالكاسي كاسي سعون أيام إنه هذا وحوي إنك عم بحد يعني معاه النقضة أما ما رك وحوي دن تاكمل هنا حق شيء أنت ناقرنا ما تقان وابيد خلاص وابيدها حق شيء حق إنا شيء أم بأمه ماذا أيتها قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان بل نقذفه بالحق فيطمغ فإذا هو زاهق أيوة مركا وحاول إن شاء الله تعالى وحنمرك ولا لها أشياء يا قبلها إن أشياء يا إنك قبلها وحاول قبلها إن الصوماليات شرف يعز إيماء كرامة احترام وناوي إذن ما هنا ما شاء الله والله كوبي كريم والله وقبلهن وحسسكن ويعني وحاوي وديجن ودعانكن دم والبا ديبك أي مرة سنة نرجع مرة على شيء ما يكون قادس نوجد نوجنيس سحارة يكون كذا روس سحرانين هبيني مالني أسوجد وقيلني عنك يقبو قيلنا يب ninka halkaas uu lugna xagu taano wax xaga taano khaaf ku haya halkaas dibka ama iyadu ku daba shaqeynaya dibka oo dhan gabdhaha ay marayaan waxa weeye ninka ragga waxba kama ogsoon wallahi isku weey duu ogaana sama sameeyeen waxay hayaan hadii ogaana si midaan garanayo wuxuu sameeyaa wuxuu sameeynaya dhaqan xun buu leeyahay أنا قرني قانبا ما أنا واحد يجي شكيني وأنا بابا جوي بالي ما نتبو بحا قلبي لحسة قالوا بحا حبوا هذه قلت يا مالها مارد كبرده خط كلوعن مقاطع قاتك وسوقاته حليه مقرني قاتك يعني كمركز إسلامتي كوس كو أبعنيه يموت يقول بحلا والله سمانية قاتك سيجاركيس halkaas ku cunaya guriga intuu limaada ku cunaya wax warna kama hay ilmihi wax walbo 10 wax wahaba yaraatay ka war hayo
بأي تأمع قاد كاسنين أو نبا قاتل سنة وناوي هبيك اللي حسا كوجاريا إلا اللي حسا هبيني مكوجاريا سو قلبي وصل حراض اللي حسا كوجاريا أروتي واجيفا واجيفا قبل أشقيس إيه شقيسة قبل أشقيس أنا كشقيسة وحليا بلاكن سويديريا فرترك بذا أم باجي تجيب دمر قاعد شقيان ورجينا أيسن شقين لا تشوغان لا نوري هو إنك شغال شقيسة ولو تمشي بمانتي صغير شيء بل إنك شقيستير تابع لوش قبل وحي جعشها إنها شقيسو لو تمشي بالصبح تمشي لنبولو هلا يمادي وحلي ما نيرتا لكن إلا بيلا يو إن هذا إلا بيلا روح اللي نتغنى واحد شرف معاه حتى وحي خلافين ما يهوري سلان حوله الورابة حتى يري هدان أوجا وسكيل علينا سكيل علينا حتى ما يها باديها يسميستين كوان حتى كمان كوان سوي لقاته ورابة رقاس كوان كوي هورنا ما أكو رقمان بسم الله كوان سيد السحسن كمان رقمان لا لا إله هؤلاء ولا إله ولا وبين ذلك لا بد بيقول حيان marka waxaan u sheegay insha Allah ta'ala ragga ma aragtay nooca dhaqan kale dhaqanka masajid baa sayida taxdiis ka ah sayida tan sawa sayida safka kaaga horeeyaan subxaana astaqbal waaya gurigoodana ku banay kuwaas ka aywa dulina sayida dhex fadhiyo afar raal hada insha Allah ta'ala ninka saas ama dhaqanka nooca leh horta waxaan u arkaa inuu qof iska khabiith akhbar iska yahay علامتي سوكتوزين حنيا وعن كلو إذا أن شيء يا رجل كان دق بول إحسان عفوا رجل قارن إيجانا دقم إليهن أو دقن كان إن قبل لا دوره لا مرمو إن أد ما سنتي رالنا هذا إن شاء الله برامج إن قبل لا دوره لا دور برامج نفسك زوا برامج صوص على أيوة سوي له ضد الليباني سي ضد حماني سي لا مرك وحاسلو وبرامج قف بان سو وعي marka inaad ruukaadi inta ka baxayna Allah khayr ku siiya haduu nin yahay warukaadi caloosha ku go'day haday haweenaytaan walaal macaan oo kaadi walaal shay macaan oo kaadi ka baxay inaad ruukaadi bal وسد ها بارك الله فيكم ان شاء الله جزاكم الله خيرا marka insha Allah intaas ku soo gabagabeynaa waxaan isku ognaa waxa weeye qodobadan ka wada hadlayno dhan waa wax mid oo dul istaagi doono soo socda waqtiga insha Allah ta'ala ilaahay haduu noo ogolaado insha Allah باذن الله الباري ان شاء الله تعالى aad baad uma sinti aad baan idin mahadcelinaya ka hari doono ma wadana ilaahay mid qodob istaagi doona ان شاء الله hawlaheedina waa hayna alxamdulillah ان شاء الله marka waxaan leeyahay salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh وجعل الله الجنة مثواكم